waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal haddaad hiddaha soomaalida dib ugu noqotaan suugaanteedana aad dhan walba ugu faarashaan waxaad ogaanaysaan baryadu inay ka mid ahayd dhaqamada aan la jeclayn qofka baryootanka lagu bartaa hadduu soo muuqdo waa ka nexi jireen la kulankiisa waa ka warwareegi jireen waayaha dambena wuxuu ku dambayn jiray waayeelka dhexdiisa ruux aan laga maamuusine laga yaso waatay ku maahmaahi jireen baryo badan iyo bugto badanba waa la ysku nacaa weliba waxay ugu daran tahay ruuxa baryootanka ku caanbaxaa kolka uu gabyaa yahay had iyo jeer hal abuurkii hore ee soomaaliyeed wuxuu ku dadaali jiray dhaqan ceebeed oo idil inuu ka fogaado dhaqan ceebeedkaas oo baryada iyo hunguri xumadu ay ugu sii daraayeen xidigiisa ayaa dhici jiray maalinta la isu sheego madal la isugu yimid inta looga gabaysiiyey in wax lagu siiyey taasna gabyaaga kale ee ay xnifta leeyihiin ayaa si fudud ugu haadsan jiray maalinta ay colaad maanso ka dhex ooganto xoolaraacatadii soomaalida siday baryadu ula fool xumayd iyo gabyaaga baryootama siduu ugu magac beeli jiray waxaa inoo iftiimin karta sheekadan aan ku wado bilowgii qarnigii 19 inay dhacday ee weliyayaashu ay inagu soo simeen waxay dhex martay 2 nin oo reer ximanood ahaa ilmo adeer laxmi ahaa dagaankii ay ku noolaayeen iyo ka fogba uu magacoodu dhab ugu faafay labada midi waa gabyaagii caanka ahaa ee haddana dagaalyahanka ahaa waa faarax xasan cali oo faarax afcad lagu naanaysi jiray wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii qarnigii 19 raggii ugu miraha iyo magaca weynaa si gaar ahna taariikhda suugaantu waxay ku xusuusataa ujeeddada nafti hafarka loo yaqaan ee isagu uu maansada soomaalida ku soo kordhiyey ninka kale waa gaashaan cabdilla cali isaguna waxba yuu gabyaa ahaane wuxuu ahaa ammaanduule iyo hogaamiye la wada muuneeyo dagaankooda raggii maamuuska badan ku qabayna ugu horreeyey labada mid waliba wuxuu lahaa qoys iyo carruur wiilal iyo gabdhaba leh oo qaarkood intay koreen ay guryo yeesheen mar hore ayaa 2 hablood oo afcadalay gu iyo dayr isxiga isla degaanka lagu guursaday looma soo golo fadhiisan lagama soo doonin lamana weydiisane labadaba inta lala baxay ayaa wadaadda lala raadsaday oo inta laga mehersaday lala aqalgala tuur markay lahaayeen iyo markay tidcadeenba waa gabdhihiisii intii ay baarka filanayeen oo hantida badan ka filanayay ha yeeshee wuu ku hungoobay labadoodii midna yarad lagama siin reerihii guursadayna kuma ay xididin waxay ahayd arrin uu aad uga gami waayey oo gocashadeedu ay sina u dayn weyday dabadeedna gabdhihii iyo nimankii guursadayba wuu ka calool go'ay faarax oo taasi ay ku taagan tahay ayaa goor subaxa waxaa golafardoodka ugu yimid nin ay qaraabo ahaayeen kii baa ku yidhi faaraxow ma xusuusan tahay ganacsatadii awruhu u raraayeen ee gu 3 inta inoo timi markay inaga ambabaxayeen gaashaan cabdilla cali gabadha weydiisan jiray faarax oo duruucda su-aashu ay weli ka daahan tahay ayaa yidhi haahoo aad baan u xusuusnahaye maxaad ku keentay shalay galab ayay nimankii soo noqdeen reer gaashaan ayay ku dul furteen waxayna gabadhii ka keeneen fardo yarad ah oo baxdow miiran ah iyo weliba bundado dhar ah oo xeebaha waqooyi ay ka soo rogeen 5 ratina ay ku soo rareen
ninkii baa sidaas ugu warramay. markaas baa Faarax la galay, wuu calool xumaaday, wuxuu garan waayey waaba ilma adeer rumaade, isaga iyo Gaashaan waxa kale ayaan badnaysiiyey. haddana intuu isqabtay ayuu hoos ka istaafurulaystay. wuxuuse ku tashaday halhaleed inuu Gaashaan ugu tago si uu wax uga soo helo xoolaha moodka iyo noolkaba isugu jira ee yaradka loogu keenay. intii uu sii socday ayuu tiriyey tixay wax yar inaga soo gaareen oo in adeerkiis Gaashaan uu markuu xusuusinayo siduu isagu hablihiisii labada ahaa ugu hungoobay ee aanu waxba uga dheefin. mar kalena uu ugu soo jeedinayo dharka loo keenay inuu qayb ka siiyo, haddii kale uu fardaha ku qabsan doono ama uu ka dhici doono, xaajana ay ku dambayn doonto in iyaga loogu garnaqo. dabadeed labadii nin oo labadiisii hablood yarad la-aanta kula tegay isaga oo mid dugaag ku tilmaamaya midna jiir, ayuu yidhi, ninkii ina adeer doora leh baa diirsan weligiise dugaag ba iga dhacay, gabadha tii iila da-ahayde tii iiga dambaysana shalaa jiir la dowgalae, dharka iiga door yaan farduhu daawo noo noqone. Gaashaan Cabdille dhulkaa la wareegay, dubka iyo dubaaqaba naxdin baa ku baahday. walwalkiisu kama dhalan dharka oo laga yaabo inuu qayb ka bixiyo, ama fardaha oo ay suuragal tahay afcad inuu qaar ka booliyado. wixii gilgilay gabayga ayuu ahaa. dhab wuxuu uga naxay tixda uu maqlay. haddiiba waxaa ka dhaadhacday hadday bulshadu la maqasho magaciis dambe inaan la qaadqaadi doonin. wuxuu istusay inkastoo baryootan toosa aan lagu sheegi karin, haddana tixdu inaysan wax quman ka duwanayn, marba haddii wax isii iyo gacmo warasho ay ka dhadhamayaan. waa in adeerkiis uu ku dhaato, oo waa gabyaa bari iyo galbeed ay Soomaalidu maansadiisa isu tabiso. wuxuu ka walwalay gabayga baryootanka xambaarsan inuu u barto, hadhowna bulshada dhexdeeda uu ku maamuus beelo wax uu yidhaahdo oo dambana aan dhegay jaraq loo siin. kolkaas buu ku tashaday inuu waxna siiyo, waxna u sheego, ama uu axdiba ka xiro. wuxuu ku yidhi, dharka iyo fardahaba Faaraxow waxbaan kaa siin, ka horse waa inaad dhaar iigu martaa, maanta dabadeed inaadan tirin doonin gabay baryootan ah iyo tixo aad wax ku doonayso. hadalkaas Gaashaan Faarax wuu garaystay. wuxuu ku jawaabay hawraarsan iyo guddoon, waxayna u eg tahay inuu kaga dhabeeyey, maxaa yeelay wuxuu dhintay iyada oo gabayadiisa Soomaalidii xilligaasi ay aad u tamadiso laguna wada jalbeebto. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.